shirkan jaraa'id aan qabanay maantay oon rabno inaan uga hadalno khataraha soo wajahay galmudug 2011 waxaan maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaaca aan gudoomiyaha saddex gol ah iyo galmudug isugu tagnay galkacayo si loo helo dawlad midaysan 2012 ximan iyo xeeb oo naloo diray yaan shirna loogu qabtay saddexdanadaba Muqdisho 2013 waxaan saxeexnay dawladdan galmudug dhismaheedii 2014 waxaan ku saxeexnay Muqdisho ilaa iyo intaasna waxaan ka soo haynay shaqo laba wasaaradood oo hadda midna aan wasaaraddan joogo ganacsiga warshadaha ay tahay wasaaradda waxbarashada ay tahay waxaan rabaa dadka inaan uga digo intaas oo dhan galmudug wax ayna soo marin ee khatar ah oo ay isugu darmatay saddex arrimood baa galmudug soo wajahay kow waxaa wajahay dalaal galmudug aanu naxayna manaxa ah labo dawlad danteeda si ay u gaarto dhaqaalihii dalka ku duminaysa galmudug saddex oday ama dantanada yeel ama iska tag ku jooga meesha danta aan kuu sheegno aad yeelaysaa ama tag saddexda arrimood baa galmudug maanta isugu darmatay waxay u baahan tahay samata bixin intaan dadka la isku layn khatar weyn imaanin beelihii hadda odayaashii khatar bay ku jiraan oday walba ninkii uu watay oo xildhibaanka uu watay markii 3 jeer 4 jeer 5 jeer inta loo yeelay markii dambe wuxuu ku qasbanaaday inuu waxa lacagtaana qaato qofkaana uu saxiixo xildhibaankii beeshu soo siisay oo loo soo ogolaadayna banaanku oday ku sugaya asagoo seef wata foomkii laga buuxiyay khataraha soo socda weeye galmudug haddaan maanta dadaal la samayn dadka reer galmudug isku imaanin danahooda aysan ka tashan waxay gaari doontaa waxaan ciribtiisa lama hadin ba ka imaan doono waxaan leeyahay dadweynaha reer galmudug oo intaas waqti u soo hornay waxaasoo dadaal u sameynay si degdeg emergency xaalad dawaari inaad isugu timaadaan galmudugna la badbaadiyo annaga badbaadin karna gacanteena ku jirtaa shalay deegaamada shabaab baan ka xoreynay dadkan walaalaynay dawlad baa dhisnayd markii dawladdan hadda ay timid laba midood baa inoo soo maantay galmudug inaan aas qaran u sameeyno iyo badbaado galmudug inaan maanta u sameeyno oo duco galmudug la sameeyo labadaas maanta inoo siman aan isaga nimaadno si emergency waana mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته